madaxweynaha dowladda Puntland Cabduuli Maxamed Cali Gaas ayaa aqbalay go'aankii maanta baarlamaanka Puntland uu ku kala diray golaha wasiirada waxaana uu tilmaamay inuu qodob dastuuri yahay go'aanka uu qaatay baarlamaanka Puntland isla markaasina uu muddada dastuurku u ogol yahay uu ku soo dhisi doono golaha xukuumadeed isagoona sheegay inuu la tashan doono madaxweyne ku-xigeenkiisa madaxweyne Cabduuli Maxamed Cali Gaas oo hadal kooban siiyay warbaahinta ayaa dhanka kale ugu baaqay shacabka iyo ciidamada Puntland inay ka wada qayb qaataan ilaalinta amniga. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. waxaan salaamayaa dhammaan shacabka Puntland meel kasto ay joogaan gudaha iyo dibadda ay ugu horeeyaan ismada Puntland. waxaan salaamayaa dhammaan ciidamada qalabka sida ee Puntland. waxaan salaamayaa dhammaan golayaasha dawladda ee Puntland. sida aad la wada socotaan waxaa maanta ay taariikhdu tahay Talaado 18 Juulaay 2017 ay golaha baarlamaanka Puntland kala noqdeen xasaanidii golaha xukuumadda dawladda Puntland taasoo ah arrin dastuuri ah oo waajibaadkooda shaqo ka mid ah. taasi waxay faraysaa madaxweyne ahaan inaan golaha xukuumadda ku soo dhiso muddada uu ogol yahay dastuurku anigoo la tashanaya madaxweyne ku-xigeenka dawladda Puntland uuna qabo dastuurka Puntland. sidoo kale waxaan ugu baaqayaa shacabka Puntland in ay ka qayb qaataan amniga dalka lana shaqeeyaan laamaha amniga isla markaana taageeraan horumarka baaxadda leh ee ka socda Puntland. ugu dambeyntii waxaan ku boorinayaa ciidamada qalabka sida ee Puntland inay xoojiyaan amniga iyo xasiloonida dalka isla markaasna ka feejignaadaan dhagaraha ay maleegayaan shirwadayaashu. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. waa markii ugu horeysay taariikhda oo ay ka dhacdo Puntland in baarlamaanku uu kala diro golaha xukuumadda. Cabdi Fataax Cabdullaahi, Kalson TV, Garowe.